ma rabtaa in Alle subxaanahu wa tacaala uu ducooyinkaaga aqbalo? Sidoo kale ma doonaysaa inuu Ilaahay ku siiyo risiq ama xoolo waasac ah? Ma rabtaa inuu Alle subxaanahu wa tacaala kuu geliyo jannaatul firdawsi laclaa? ma rabtaa inuu Alle subxaanahu wa tacaala dembiyadaada dhaafo oo kaa tirtiro? ma doonaysaa in Ilaahay darajo kor kuugu qaado? ma rabtaa in Ilaahay subxaanahu wa tacaala cuquubo kuu soo socotay iyo balaayo kugu dhici lahayd uu kaa qabto? ma doonaysaa in Ilaahay subxaanahu wa tacaala naftaada kuu daahiriyo? awlaad doon ma tahay iyo ilmo doon ma tahay oo ma rabtaa in Ilaahay subxaanahu wa tacaala ilmo iyo awlaad ku siiyo? ma rabtaa inuu Alle subxaanahu wa tacaala ku siiyo caafimaad iyo xoog iyo awood? haddaba intaasoo idil waxaa lagu helaa dikrigan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena, soo dhawaada walaalayaal, ku soo dhawaada maalin cusub iyo muuqaal cusub aad u xiiso badan. waxaan filayaa inaad nabad qabtaan, caafimaad qabtaan, ood nimcaysan tihiin, ood barwaaqaysan tihiin. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa nimcooyinka inuu noo siyaadiyo oo uu naa laazimo inta walaalaheena ee dhibaataysan, ee kurbaysan, ee xanuunsan, ee deymaysan, ee xabsiyada ku jirtan Alle subxaanahu wa tacaala faraj khayr qaba oo barakaysan oo u soo dejiyo biidnillaah. soo dhawaada walaalayaal, ku soo dhawaada qisadeena maanta, taasoo ku saabsan dikriga Alle subxaanahu wa tacaala iyo istighfaarta iyo mucjisooyin laga arkay iyo walaalo Alle subxaanahu wa tacaala noloshoodii ku bedelay. qisadeena koowaad gabadhaani waxay leedahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu fududeeyey arrin. istighfaarta Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu fududeeyey arrin. waxay tiri waxaa wejigeyga iyo jirkeyga oo idil ka soo baxay nabro aad iyo aad u weyn oo dadkii igu takooreen, oo dadkii igu noqdeen qof laga ordo, qof aan loo dhowaan, oo qof walba ileeyahay ha igu daaranin, cuduraa ku dhacay iyo waxyaalo aan qalbigeyga u rooneen. waxay tiri wax walba waxay ahaayeen qadar Ilaahay. daawo walbo iyo wax walba waan isticmaalay, laakiin Ilaahay subxaanahu wa tacaala ma qadarin inaan xanuunkii ka fiicnaado. wejigeyga jirkeyga waxaa ka soo baxay nabro waaweyn oo qofkii i arka uusan ii dhammaystiri karin inuu wejigeyga sii fiiriyo ama jirkeyga. qof walba iga cabsanaya, qof walba ilaahay ii soo dhowaanin, ha ii taabanin. dadkii ay aad ii faquuqeen. waxaan dareemay ayay tiri in dadka hadday dhibaato yar kugu dhacdo inay kugu diganayeen, in aysan dhahaynin marnaba waxaan waa qadar Ilaahay, qofkan asiga iskuma keenin ee Alle subxaanahu wa tacaala ayaa u keenay. alxamdulillaah, Ilaahay waa iiga heeliya dadkii igu diganayay, qadarta Rabbi ee igu dhibaateynayay. alxamdulillaah, markii aan arkay istighfaarta iyo faa'iidada ay leedahay oo aan joogkeeyey, Alle subxaanahu wa tacaala waa igu caafiyey, caafimaad taam ayuu i siiyey. nabri iga soo baxayna si tartiib tartiib ayuu Alle subxaanahu wa tacaala iga caafiyey. wejigeygii iyo jirkeygii dheehoodii iyo quruxdoodii hore ayaa ii soo noqotay. alxamdulillaah ayay leedahay gabadhan. qisadeeni xigta maanta gabadhan waxay leedahay muddo 5 sano ah waxaan raadinayay oo Alle subxaanahu wa tacaala igu siiyey istighfaarta. markii aan jaamacadda ka qalin jebiyey oo aan dhammeeyey, waxaa dhacday inaan shaqo waayey oo meel walba iyo albaab walba aan gargaraacay. ugu dambeyn 5 sano ayay igu qaadatay anigoon shaqo helin. waxaan bilaabay inaan daa'imo oo laazima istighfaarta. alxamdulillaah, muddo kooban gudahoodna Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu iigu furay faraj oo waxaan ku helay shaqo mushaarkeedu wanaagsan yahay, meel wanaagsan oo sharaf lehne laga shaqeynay. alxamdulillaah, Ilaahay subxaanahu wa tacaala 5 sano waxaan raadinayay, muddo kooban ayuu igu siiyey. wiilkaani wuxuu leeyahay istighfaarta waxaan ku arkay mucjisooyin. wuxuu leeyahay Ilaahay wuxuu i siiyey lacag fara badan oo aan kaga maarmay bini'aadan iyo baahidiisa. waxaan ku jiray duruufo dhaqaale oo aad iyo aad u adag. alxamdulillaah, wuxuu yidhi markii aan badsaday istighfaarta, Ilaahay xoolo ayuu i siiyey. waxaa kaloo dhacday in awlaad iga soo dahday. ilaahayna wuxuu i siiyey awlaad barakaysan oo khayr leh. qisadeena xigta maanta ifa inooga sheekeynaysa gabarta bacnata keli. markii aan istighfaarta bilaabay kadib, waxaan isku arkay in duco walba iyo wax walba aan Alle subxaanahu wa tacaala weydiisanayo uu ajiibo. waxaan akhrisan jiray ayay tiri salaadaha kadib. mar walba oo aan salaad tukado kadib ayaan akhrisan jiray ayay tiri. gabadhaani waxay leedahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala xanuun i haayay oo sixir ahaa ayuu iiga badbaadiyey, iigana qaaday istighfaarta. sixirkaasoo burburiyey dhammaan nolosheyda. alxamdulillaah, caafimaadkeydii, quruxdeydii iyo nolosheydii waa ii soo noqotay. aad ayaan ugu celceliyey ayay tiri istighfaarta. qisadeena xigta maanta waxay noo sheekeynaysaa gabar
gabadhaani waxay tiri istikfaarta markii aan bilaabay kadibna aan ka maqlay sheekh ka hadlayo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu igu siiyey waxyaala aan islahaa macquul ma aha. waxay tiri waxaa lahaa gabar weyn oo gaartay da'da 35 sano, guurkii ayaa iga soo daahay. qof walba wuxuu leeyahay ma guursatid, gabdhaha adigoo kale ah way guursadeen iyo hadalla kale. waxay tiri aniga qof wanaagsan oo ii qalmo waan waaye, laakiin ilaahay subxaanahu watacaala qadartiisa ayaan ku qanacsanaa. marka dambe oon bilaabay istikfaarta, alxamdulillaah waxaan ku helay zawj wanaagsan iyo nin wanaagsan oo noloshaydii kaafiyey. alxamdulillaah ayay leedahay gabadhan. qisadeena xigta waxaa inooga sheekeynaya maanta wiilkani wuxuu leeyahay istikfaarta aniga waxaan ahay een isleeyahay qofka ugu badan ee faa'iido ka helay. wuxuu yiri ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu igu siiyey marka hore awlaad. 10 sano anigoo waxba dhalin ayuu alle subxaanahu watacaala igu siiyey awlaad. wuxuu yiri ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kaloo i siiyey dhul. waxaan ahaa qof jecel inuu hanti yeeshto, dhul iyo mashaariic guulaysatay ayuu alle subxaanahu watacaala ilaahay i siiyey. ilaahay wuxuu iga gargaaray dad i dulminayay oo dhibaato igu waday. dadkaasi kamaan xoog badnayn kamana xeelad badnayn, laakiin alle subxaanahu watacaala ayaa iga gargaaray. ilaahay wuxuu i siiyey ayuu leeyahay deganaan iyo naxariis. waxaan noqday qof degan oo nolosheediisa ay u quruxsan tahay. wuxuu yiri mar walba oo istikfaarta akhriyo, maalin walba oo waaga baryo aan akhriyo istikfaarta, ilaa ilaahay xoolahayga xoolo ayuu ku soo kordhiyaa. hantida iyo dhaqaalaha aan haysto ilaahay xoolahayga xoolo ayuu ku soo kordhiyaa. wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala xaaskayga oo dhalaysay markii aan u akhriyo istikfaarta ilaahay waa u fududeeyey. intaasoo faa'iide ah ayaan ku helay. ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahadleh. haddii uu kaa raali noqdo wax walba oo aad doonayso ayuu ku siinayaa. haddaba istikfaarta alle subxaanahu watacaala ayaa inoogu sheegay quraankiisa faa'iidada ay leedahay. wuxuuna alle subxaanahu watacaala yidhi faqultu istagfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursil as-samaa'a calaykum midraara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله سبحانه وتعالى وحوليه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. والله سبحانه وتعالى دم داف ويديس تحيدين دم دافه يرسل السماء عليكم مدرارا. وحيالها لغوه الاستغفار تحاكم دراب واختيار كل لها عيدتك كلهين قف والبوح أبهايا إنو قبوسد إنو نمعيستو. dadka beeraleyda ah, dadka baadiyaha ku nool oo noloshooda idil ay ku xiran tahay roobka. xilliyada ay abaarta dhacda aad ay ugu baahan yihiin roobka. marka waxyaalaha roobka lagu helo waxaa kamid ah istikfaarta. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kaloo leeyahay wayumdidukum biamwaalin wabaniina. waxyaalaha kale ee lagu helo istikfaarta waxaa kamid ah awlaada iyo xoolaha. awlaada dad ayaa wax walba intay sameeyeen iyo meel kasta intay tageen aan helin. waa wax ilaahay subxaanahu watacaala gacantiisa ku jiro. waa hadiyad uu ilaahay bixiyo, qofkuu doono ayuu siiyaa. ilaahay subxaanahu watacaala markuu awlaada ka hadlaya wuxuu yidhi lilaahi mulku samaawaati waalardi yakhluqu maa yashaa yahabu liman yashaau inaasan wayahabu liman yashaau dhukuur. ilaahay qofkuu doono ayuu u hibeeyaa. yacni waa hibe ilaahay subxaanahu watacaala awlaada. qofkuu doono wiilaluu siiyaa, kuu doono gabdhuu siiyaa, kuu doono gabdha iyo wiilal ayuu isugu daraa, kuu doono ilaahay bandhalays ayuuba ka dhigaaba. marka waa alle subxaanahu watacaala gacantiisa keliya wax ku jiro. hadduu maanta ilaahay kuu qorin inaad hooyo noqoto ama aad aabba noqoto, ma jirto cid awlaad ku siin karto. hadduu ilaahay kuu qorin maanta xoolahan inaadan helin, ma jirto cid ku siin karto. ilaahay subxaanahu watacaala gacantiisa ay wax walba ku jiraan. ilaahaygaas bari, ilaahaygaas dambi dhaaf weydiisa, ilaahaas isku xir, ilaahaygaas raaligeli si uu kuu siiya baahiyahaaga. mahadsantihiin walaalaha khayrka jecel. qasaskeenu ku saabsanaa maanta istikfaarta harka ayuu noogu ogyihiin. haddaa meeshan soo gaartay muuqaal like saar, qaybta hoose kommentiga ku soo qor. saliga xabiibkeena maxamed. wassalaamu calaykum.